الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين halkan waxaan ka soo jeedinayaa warmurtiyeedka guddiga kala saaridda xamladaha u soo tartamay fulinta adeega xajka Soomaaliya sanadka 2019 oo ku beegan 1440 hijriya maanta ay taariikhdu tahay 12 Ramadaan sanadka 1440 hijriya kuna beegan 16 May 2019 guddiga arrimaha xajka Soomaaliya 2019 waxa uu soo gabagaboobay gudashada hawsha qaran ee kala saaridda xamladaha soo dalbaday fulinta adeega xajka sanadkan guddiga oo u fadhiyay shirar dhaadheer oo maalinle ah intii u dhaxaysay 2 bisha May ilaa 16 bisha May 2019 hawshiisana ku matalayay qaranka Soomaaliyeed wuxuu maanta si guul ah ku soo gabagabeeyay natiijona ka soo saaray xamlooyinkii u soo tartamay inay u adeegaan xujayda beydka alle ee xurmada leh sanadkan 2019 haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin iyo warmurtiyeed ku aadan natiijadii ka soo baxday kulamadii loogu garsoorayay xamlooyinka kow wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayada oo gudanaysa waajibkeeda dastuuriga ah iyo keeda diineed matalaysana dowladda Soomaaliya waxay soo saxiixday heshiiska ama maxdarka xajka sanadka 2019 labo tirada xujayda guud ee Soomaaliya loo ogolaaday sanadkan 1440 oo ku beegan 2019 waa 11500 oo xaaji saddex wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay ku dhawaaqday 3 bisha Abriil 2019 in jihooyinka daneynaya u adeegidda xujayda sanadkan inay ku shaqeeyaan nidaamka xamlooyinka oo hoos tagaya bicsada xajka ayna ka qayb galaan tartan furan oo ku dhisan fursad loo siman yahay afar wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo tixgelisay baahida loo qabo in la helo kala saaridda xamlooyinka soo tartamay waxay magacowday 2 May 2019 guddiga kala saaridda xamlooyinka iyo ka tala bixinta arrimaha xajka si ay xamlooyinku u fuliyaan adeega xajka sanadka kan waxaana laga soo saaray guddigaas culimada ganacsatada bulshada rayidka iyo wasaaradda ayada oo laga duulaya baahida loo qabay kadib wada tashiyo ay wasaaraddu la samaysay madaxda qaranka shan guddiga wuxuu wasaaradda kala wareegay 4 May 2019 galalka shirkadaha u soo tartamay fulinta adeega xajka 2019 kuwaasoo gaarayay 84 xamladood 6 guddigu wuxuu qabsaday kulamo 5 ilaa 6 bisha May 2019 si uu isla meel dhigo dejinta habraaca loo marayo kala saaridda xamlooyinka u soo tartamay fulinta adeega xajka sanadkan iyadoo ay wasaaraddu soo gudbisay shuruudaha aasaasiga ah ee ay ku qabatay galalka 84 ah ee soo gaaray waaxda arrimaha xajka iyo cumrada ee wasaaradda intii u dhaxaysay 3 ilaa 13 bisha Abriil sanadka 2019 7 guddigu wuxuu sameeyay hubintii koowaad tii labaad iyo wareysigii xamladihii u soo tartamay kadib wuxuu guda galay soo saaridda natiijada wareegga u dambeeya 8 xog ururin laga sameeyay dowladaha deriska ah aan ku celiyo halka xog aruurin laga sameeyay dowladaha deriska ah iyo dhammaan xamalaadka guddiga hor yimid ee la wareystay wuxuu guddigu go'aan ka gaaray qiimeynna ku sameeyay qiimaha lagu aadayay sanadka kan xajka kaasoo saqafkiisa uu yahay 3600 oo doolarka Mareykanka ah oo meesha ugu sarreysa halka xajka VIP-ga qiimihiisa ugu sarreeya uu yahay 5000 oo doolar oo kaliya xamladii qiimo inta ka badan dalbata waxay waayeysaa ruqsada loo siiyey u adeega xajka 9 gabagabadii waxaa soo gudbay oo ku guuleystay 58 xamlo tartankii dhex maray xamlooyinkii 84 ahaa shirkadihii ku guuleystay ama xamlooyinkii ku guuleystay tartanka adeega xajka sanadkan waxa ay kala yihiin shirkadaha ba kow Dala Airlines 2 Juba Airways shirkadaha ta kow Freedom 2 Arafat 3 Jawhar
afar rixle mubaaraka shirkadaha ja kow ocean labo african express saddex air jabuuti afar dalmar travel shan hogol travel lix ridwan air shirkadaha xa kow daruuro shirkadaha kha kow saj travel labo maka travel saddex new star afar anwar travel shan s b d lix safari travel shirkadaha da kow maka almukarama labo karama saddex kalker afar manasik travel shan royal som lix bright toddoba alhuda travel xaj an cumra sideed almanasik fo xaj an cumra sagaal falay cadde shirkadaha sa kow hala airlines labo alrayaan saddex federal afar euro africa shan somali travel lix taysiir toddoba labeyk sideed qudus sagaal university toban salaama xaj an cumra koob iyo toban universal labiyo toban alsaqar saddex iyo toban alixsaan afar iyo toban alhijra travel shan iyo toban cibaar travel lix iyo toban alhijra air toddoba iyo toban ritaaj sideed iyo toban hiiliye sagaal iyo toban splash labaatan salaama travel koob iyo labaatan mustaqbal labiyo labaatan anfaal saddex iyo labaatan national airways afar iyo labaatan abmoji travel shan iyo labaatan safeway lix iyo labaatan travel express toddobiyo labaatan keyway sideed iyo labaatan rugsan sagaal iyo labaatan hubaal soddon diamond gebagabadii waxaynu caddaynaynaa dhammaan xubnaha guddiga kala saaridda xamlooyinka usoo tartamay fulinta adeega xajka sanadka kan in aan isku waafaqnay qodob walba oo ka mid ah bayaankan ka soo baxay guddiga labo sidoo kale waxaan caddaynaynaa annaga oo guddiga ah inaysan jirin wax faragelin ah haba yaraate ah oo nooga yimid muasasaadka kala duwan ee dowladda iyo kuwa kale ee calaaqada la leh ugu dambeyntii waxaan u rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed in allah uu ka aqbalo acmaasha bisha barakaysan ee ramadaan uuna waafajiyo gudashada xajka sanadka kan waxaana shirkadaha ama xamalaadka guulaystay ee qaadaya xujayada sanadka kan aan kula dardaarmaynaa inay acmaashooda sugitaan ku sameeyaan oo ay sida ugu sarreysay ay ugu adeegi karaan xujayada beytka alle ay ugu adeegaan waayo nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh axabu alacmaali ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camala an yutqina ilaahay wuxuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala qofkiin marka uu shaqo qabanayo shaqo sugan oo qurux badan inuu qabto ayuu jecel yahay sidaa darteed waxaan alla weydiisanaynaa inuu acmaashaana ka dhiga mid isaga dartii loola jeedo isaga ayaana ku mahadsan inuuna waafajiyey shaqada tan waxaan intaa ku daraynaa sharikaadka ama xamalaadka ku guulaystay tartankii aynu marinay xamladihii usoo tartamay xajka inay la xiriiraan wasaaradda oo ay kala xiriiraan wixii tafaasiila oo intaa dheeri ka ah shirkad walba waxay ku guulaysatay iyo shuruudaha laga doonayo iyo wixii arrimaha la halmaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakatu